yaa badbaadiyey badda Soomaaliya. Muranka Soomaaliya iyo Kenya ee xadka badda waxa uu haatan socdaa ku dhowaad 15 sano, wuxuuna ku salaysan yahay sida loo cabirayo xadka badweynta Hindiya ee labada dhinac. Soomaaliya waxay doonaysaa in cabirka xadka badda si toos ah loola dhiriiriyo xadka dhulka, halka Kenya ay doonayso in la weeciyo baaxadda ay ku fadhiso. Badda lagu muransan yahay waxa uu gaarayaa ilaa 100,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah. Muranka soohdimaha waa arrin soo jireen ah oo dhex mara dalalka deriska ah, gaar ahaan dalalka Afrika oo xaduudaha dalalkooda uu sameeyey gumaystihii. Laba dal kasta oo leh xaduud badeed oo aan lahayn heshiis xaduud badeed oo ay isku raacsan yihiin ama hay'ad caalami ah u samaysay, waxaa la dhihi karaa waxaa ka jira muran badeed, maritime dispute. waxaana xusid mudan inuusan jirin heshiis soohdin badeed oo ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya iyo mid loo sameeyey toona. Let's look at what Kenya told the court in its preliminary objections. And I quote, "It was only in 2009 that Somalia first disputed Kenya's 1979 EEZ maritime boundary." Haddaba, sidee buu khilaafku ku bilowday? Maarso 13keedii sanadkii 1997 ayay soo jeedisay Qaramada Midoobay in 150 mayl oo dheeraad ah lagu daro dawladihii saxiixay qalfoof badeedka oo dhan 200 oo mayl UNCLOS oo u dhiganta 370 kiiloomitir, ayna noqonayso 350 mayl badeed oo ah 648 kiiloomitir. Xilligaas waxay Qaramada Midoobay samaysay guddiga xadaynta badaha oo ka koobnaa 21 xubnood. Dawlad kastana waxaa laga codsaday inay soo gudbiso naqshadda ay ku codsanayso 150 mayl. waxaana laga rabaa in dawladda xaduudda la leh aysan ka hor imaanin. waxaana loo qabtay 2009kii muddo kama dambays ah, waxaana sharaxaya shuruudahaas si loogu kordhiyo xadka badda qodobka 76 ee xeerka badaha ee UN-ka. dalkii aan xilligaas keenin cabirka iyo macluumaadka waxaa ka baxsan 200 oo mayl lagu wareejinayaa hay'ad hoos timaada Qaramada Midoobay ee International Sea Authority, taas oo ka karayn karta dalal kale si ay khayraadka ugala baxaan ama ay u sahmiyaan shidaal. Soomaaliya ma lahayn awood aqooneed oo ay ku gudbiso xogtaasi iyo weliba macluumaadka looga baahnaa ee lagu codsanayo 150 mayl ee continental shelfiska ah. Qaramada Midoobay ayaa dawladaha khibradda u leh hawshaasi ka dalbatay in Afrika laga caawiyo hawshan. Dawladda Norway ayaa Qaramada Midoobay ka aqbashay codsiga 14 dal oo Afrikaan ah inay ka caawiso oo Soomaaliya ay ka mid ahayd. Norway markii ay soo dhammaysay diyaarinta xogta iyo macluumaadka la xidhiidha gudbinta continental shelfiska ee Soomaaliya ayaa waxaa ka hor yimid caqabad ay Kenya abuurtay. Kenya ayaa jaabka kala soo baxday cabir xaduud badeed oo ay 2005tii iyadu si iskeed ah u jeexatay xariijin ay ku sheegtay inay tahay xadbadeedka labada dal, iskuna dayday inay ka diiwaangeliso Qaramada Midoobay iyadoo ka faa'iidaysanaysa duruufaha ay Soomaaliya ku jirtay xilligaasi. maadaama uusan jirin heshiis soohdimeed oo labada dal horey u kala saxiixdeen oo ay Qaramada Midoobay ka diiwaan gashan, Kenya waxay isku dayday in marka hore la xalliyo khilaaf xadbadeedka ah ee ay iyadu abuurtay, laakiin dawladdii Soomaaliya ee ku meel gaarka ahayd waa ay diiday. waxayna ku adkaysatay in arrinka lagu koobo oo keliya continental shelfiska qalfoof qaaradeedka oo ay gudbintiisu ku eg tahay 13 May 2009kii. labada dal ayaa qoorta isla galay iyadoo wakhtigaasi loo qabtay inay soo gudbiyaan xogta iyo khariidadaha ay ku codsanayaan 150 mayl ee continental shelfiska ah. haddii kale ay luminayaan xaqaasi, xaaladda ayaa cakarantay. Norway ayaa ugu dambayn la timid xeelad ay xal ugu hesho ismarinwaaga labada dal, sida uu ka marag furayo Professor Paul Rechler oo ka mid ah garyaqaanada difaacaya Soomaaliya. The General Assembly called upon UN member states, quote, "to assist coastal African states in the preparation of submissions to the Commission regarding the outer limits of the continental shelf beyond 200 miles." Norway, to its credit,
answered the call. Norway facilitated and drafted agreements between and among neighboring states, committing them to refrain from objecting to CLCS review of each other's submissions. Norway waxa ay soo diyaarisay is-afgarad Memorandum of Understanding MOU oo ay labada dal isugu oggolaanayaan inuusan midba kan kale ka hor istaagin inuu warbixinta iyo naqshadaha ku dalbanayo 150 nautical mile oo dheeraad ah u gudbisato guddiga xadaynta qalfoofbadeedka ee qaramada midoobay. Is-afgaradka ayaa lagu daray inuusan wax saamayn ah ku lahayn xadka u dhexeeya labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya iyo aagga lagu muransan yahay. Aagga lagu muransan yahay waxa ay ahayd diidmo maldahan oo ku aadan cabirka ay Kenya kaligeed jeexatay 2005 iyadoo ay caddahay in heshiiska Memorandum of Understanding uu ku kooban yahay oo kali ah continental shelfiska ama qalfoof qaaradeedka. Professor Paul Regler wuxuu ku dooday oo maxkamadduna ku raacday in MOU uu ku egyahay oo keliya in aan labada dal iska hor istaagin inay gudbisadaan codsiga continental shelfiska ama qalfoof qaaradeedka kana war sugaan tala soo jeedinta guddiga xadaynta badaha ee qaramada midoobay. It describes the MOU as being, quote, in respect of submissions on the outer limits of the continental shelf beyond 200 miles. Nothing about dispute settlement is mentioned. Halkaas waxay Soomaaliya ku badbaadisay 150 mayl ama 350 kiiloomitir oo baddeeda ah. If they miss the deadline, their potential rights beyond 200 nautical miles might be lost forever. Dhinaca kale, baarlamaanka Soomaaliya ee ku meel gaarka ahaa ayaa diiday is-afgaradka dhibkaasi laga soo maray, wuxuuna ku qasbay xukuumadda inay ka laabato is-afgaradka. Kenya intii ay dacwada socotay waxay diidmada baarlamaanka u daliishatay in Soomaaliya aysan xal rabin, maxkamaddana aysan dacwo qaadi karin maadaama baarlamaanka diiday is-afgaradkii isla markaana ay xukuumaddii xilligaasi jirtay ka noqotay. Soomaaliya waxay ku qasbanaatay in diidmadii xukuumaddii Cumar Cabdirashiid dib looga noqdo si Kenya loo xujo tiro, iyadoo oo wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya xilligaasi Cabdiraxmaan Beyle uu dib ula soo laabtay codsigii diidmada ahaa. ase xeraali ahaan ase mas'uuliyad ahaan aniga oo aan munaafaqadaynin aniga oo aan cidna aan heebaysanayn waxaan aaminsanahay anigu shakhsiyan in ay mudan yihiin in lagu siiyo credit in lagu siiyo ka hadlidii ay ka hadleen badda Soomaaliyeed inay ka hadlaan oo doodaas ay keenaan aad iyo aad baan credit ugu siinaya. MOU-ga ay saxiixeen oo lagu eedeynayaan ujeedadiisa maanta la qeexay waad arkayseen qareenadu inay si cad u qeexeen. ujeedadiisu ma ahayn inay bad Soomaaliya lagu bixinayay, ma ahayn in bad Soomaaliya lagu gadanayay, mana ahayn sida dadweynuhu u dhigahayaan ama shacabku ay u dhigahayaan meelaha qaar. Haddaba su'aashu waxay tahay muxuu xeer ilaaliyaha u yidhi ragga la eedaynayo waa mas'uuliyiin Soomaaliyeed sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Cumar Cabdirashiid iyo Sheekh Shariif oo mudan intaa loo dhiso? Jawaabtu waa waxay badbaadiyeen 150 mayl oo u dhiganta 350 kiiloomitir oo bad ah oo gacanta u geli lahayd hay'adda caalamiga ah ee badaha. Waxaa kaloo Kenya ay ka dhigeen 100,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah oo ay rabtay in looga aamuso sababtoo ah haddii aysan iyagu ku qabsan lahayn dawladdii ka dambaysay ee uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fursad uma aysan hesheen meel ay dacwad ka galaan.